لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi waa kuwe waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadadiyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صلاة ويت كذان لكن أوقات دي حلق الربان بيت كذان كوا دون كان آخر صلاة دي إلهي وكوا عذاب يا بلي قال الله بعد وقال دي صلاة ويت كذا جمعنا ويكو إلى ليا مساجدنا ويمادا لكن قلبي روح حاضر معه من البداية إلى النهاية صلاة دوا سهوي كوا أنا صلاة دو إلهي بيهرت الله هدو دون إلهي وكوا عذابي haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yiraahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad uu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tagaya dadna uu ka soo celinaya haddana uu la tagaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimideen ilaahay baa uu qorayo ka aqbalaya inta ka dhiman ilaahay waa ka cafinaya baa leeyahay salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada استعينوا بالصبر والصلاة وكوا ماركتاني حوائج سودا باهدة أي ليهين بركي أرنا أي لسو درستو وأي ليهين صلاة بانكو أرضيا هذي إعداد يضيح يسبدل كدعو صلاة بالله جديي هذي أباري أي تمادو صلاة بالله جديي هذي عب صودات صلاة بالله جديي هذي مصيبة كدعو صلاة بالله جديي هذي مرادي حاجة يشان صلاة بالله جديي هذي أرين خير يا شرين أولاد هاي كلا ساري وهايان صلاة الاستخارة لو جديي استعينوا بالصبر والصلاة دولك أفراد ودولك حوائج تودا أدويدنا إليهين واحد مراد ليهين هبل هايان نوغو الشيك ميد آذاني مساجد كينتي السوق الله بباهدو دي لحو الشيكتان صلاة شنعنا وصلاة نبينا عليه الصلاة والسلام وصلاة النبي يقول أرحنا بها يا بلال كعو صلاة نوغو راحي سنة حبب إليه من الدنيا ثلاث الدنيا وحيا لصدع بانيق اللي يجعل يسيب ورسولك وعلى يجعل يسي الطيب وحل يحبودك ودكون والنساء يهوينك وعلى يجعل يسي وجعلت قرة عيني في الصلاة هل كان عندها يجي قلبك وكوكبو بيانا صلاة الله يلب النبي عليه الصلاة والسلام بركة صحابة رسولك صلاة سيبرتين يكو إن صلاة كرة حيستان إن صلاة أي النقطة meel markay salaada ay xidhaan adduunyada ay ka tagaan nin culimadii salafka kamid ahaa ayaa mar alle markuu salaada xidho thabit al-bunani baa loo jiraa abu muslim rahimahullah waxa lagu yiri salaadana tukanaysid anaku waan laanahay saad ku heshaad ku salaadan mar alle markuu salaada tukanay ilmada ka daadanaysa wuxuu yiri kaabatu min ajli salati li 20 sana wa tan'amtu biha 20 sana buu yiri salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaaro لبعض سنة أيام الصوت تبعي بالأصول دلالي هذا لبعض سنة وأكون راح يستقبل الصلاة ناس كيف يد الصلاة أبو تكتنو شيء بالغي ويقول إنما يهونو صفقة مركان قال أبو إمامك عن كذا شيء سيستغل صلاة حيرنا وحن استحضار عن قصة حاضر صلاة قلبي يوم يقوم الناس لرب العالمين وحن كالسوق على صفكا مسجد كأن جوجا إنه يأكل محشر كبك قيامة هل كاسر مركا كحد أبو الصلاة إن الإله يرتاك هاي بصو حاضرية اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلهي واحد عبد سي واحد هذيك واحد جدو أركيسو حتى هذيك أركين إلهي جل وعلا سقط أركاي وحولي مركا وحن كفكر مركا صلاة الإحداث كي حق مدق إيجا حقي وملايكتو أي قادون لي إلهي باكو يري حسابتا لغو ويدا سو دقاق هذانا كي بدح إيجا حقي أولا قاضي كي إيجا دنبيي أولا قاضي كي إيجا هريي أولا قاضي waxay salaadu ii dhamaata aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadir saday maxsharkii banka qiyaamaha kaliga ba ku haray hadda ilaahay ku yeeri doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenka iyo shucuurta ama salaadeeda ku dhameystaa ay reesliini kuna dareenka ku dhameystaa masaajid anagu habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat al-isha وأما إن كان من المكذبين الضالين
masaajidka oo dhan baa yidhi aamiin waa rakacaddii labaad salaat alcishaa anna waan ku jiraa safka hore salaaddii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labaad halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo waan la bilownu midh annagu alla waa ku darra laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligee gudaha ka wada hadallaa buu wاlinaabatu ilaa daari اlkhuluud min asbaabi اlhidaaya inuu qalbigii qofka nuur alhidaaya ay degtay waxaa lagu gartaa buu yidhi rasuulku daarta waaritaanka u saaxiibka ee lagu dambaynayo ayuu qofka muuminka qalbigiisu jeclaadaa buu rasuulku wاlisticdaadu lilmowti qabla nuzuulihi wاlisticdaadu lilmowti qabla nuzuulihi calaamadda saddexaad ee muuminka lagu gartaa waxaa ka mida buu yidhi rasuulku inta qofka muuminkaa ajashu aysan ku iman isagaa dhimashada u diyaara man mina laa yakraha almowt dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida noloshaan jecel lahay ashyaada materiyaalka iyo lacagta iyo camalka saalixa qalbigeennu hadday dhibaata ay nagu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanaya wuxuu le lacag haddaad haysa mashaakilka way xallismaysaa khaaliq iyo makhluuqana maanta ummaddu way kala garan laadahayba khaaliq iyo makhluuq ilaahay ma doonaya qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaggiisa mooyaane waa meesha ilaahay addoonka uu ka fiiriya buu rasuulku yidhi qalbigu calayna an nuxsina mandar الرaحmana mina in اllaha laa yanduru ilى أجسaamiكum walaa ilىa suwariكum walaakin yanduru ilىa quluubiكum وaacmaaliكum walilaahi اlmaثل laclى adoo shaqadaadii ka yimiday haddaad qolkii hurdada aad ugu timaaddo xaaskaagii oo ninkan ula fadhiya ka waran walilaahi اlmaثل laclى halkaa ilaahay ma jeclo mana rabo in lagu arko jacaylo kale iyo cabsi kale iyo rajo kale iyo baryo kale ilaa baryadiisa iyo cabsidiisa mooyaane waa xubinta keliya jidhka la sheegay inay keligee tahay alqalb gacmuhu waa labo luguhu waa labo indhuhu waa labo sanku waa labo debnuhu waa labo dhaguhu waa labo u fiirso kelyuhu waa labo garbuhu waa labo bawdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid keliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta keliya jidhka bini aadamka maamusha buu rasuulku idaa saluxat saluxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi alaa wahiya alqalb xubin baa ku jirta jidhka bini aadamka hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday ba'naatana jidhkao dhan baa ba'naan taasina waa qalbiga buu nebigu yidhi hadduu qalbigu hagaago qalbigu muxuu ku hagaagayaa waa ilaahay macrifadiisa hadday qalbiga macrifada ilaahay ay degto xubnaha bini aadamku waxay noqonayaa xubna marna ilaahay aan cisyaankiisa ku dhacay marna ilaahay inay caasiyaan way adkaan maadaama xubintaasi maanta ay bukootay indhaheenni waxay rabaan bay eegayaan dhegaheenni waxay maqlaan bay dhegaysanayaan gacmaheenni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheenni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheenni meeshaan rabnaan ku bixinaynaa hadalkeennii meeshaan waxaan doonaan ku hadlaynaa xasan albasri raximahullah ayaa yidhi 30 sano maan qoslin 40 sanona maan kaftamin waxaan soo gaadhay rag iyo aqwaam waxaan soo gaadhay aan markaan la joogo aan isku malaynayey inaan anigu tuuga aan isku malaynayey waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkiisa taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadalkaa leh 30 sano maan qoslin buu yidhi 40 sanona hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaadhay aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sadaaqay hadday jidhka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meeluu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi lahanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka
ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaadhay tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa tan dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseene way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaa ku camal falaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baa ku shaqeeyaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratu lmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsado khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisi addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhaha waryaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu keeni markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adoo adu xidhoon baa dhar ii noqonaya buu markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baanu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doonu uma socdo walaa tamshi fi اlardi maraxa inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dillaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid ee bini aadan xariyakaad ila daciifa tahee maxay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey maxay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhre mooyaane waxaa nahay ma jirto waxaa qiimo ku leedahay waa ilaahay daacaddiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindhaya kaadiyo dhiig iyo biya kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigaya horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 kaa sana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baad